shirkan jaraa'id ee dawladda Jabuuti ay ku soo bandhigtay warbixintii ugu dambeysay ee dadkii ka dambeeyay qaraxii 24kii bishan ka dhacay dalka Jabuuti waxa faahfaahiyay xeer ilaaliye Maki Umar Abdulqaadir en provenance de Hargeisa au poste frontière waxaana sheegay in labada qof ee isqarxiyay ay 22kii bishan soo galeen magaalada Jabuuti isla markaana ninka lagu magacaabo Muuse Rooble Hiraad uuna ka soo jeedo magaalada Diridhabe ee ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya halka haweeneyda isqarxisay oo lagu magacaabo Hodan Maxamed Ciise uu sheegay xeer ilaaliyuhu inay ka soo jeedo magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxaana sheegay xeer ilaaliyuhu in markii ay ka soo galayeen xuduudda dalka Jabuuti uu la leeyahay Soomaaliya uu fududeeyay soo galitaankoodasi nin ka tirsan ciidamada booliiska lagu magacaabo Suleymaan Waabari kaasoo hadda dawladdu ay qabatay isla markaana uu baaritaano ku socdo dhinaciisa Korneyl Cumar Xasan oo madaxa dambi baarista ciidanka booliiska ee CID-da ayaa isna sheegay in dawladdu ay ku wada baaritaano isla markaana saaka 7 qof maxkamadda la soo taagay dadkaasi bila sharci bay ku soo galeen wax waraaqo haysteen ma jirin magacdoodii way noo suurta gashay inaan helno halkii ay seexdeen habeenkii ku horeysay 3 meelood ayay aqal ay ku soo degeen saddexduba ay balbal ku yaalaan ninka magaciisa waan helay gabadha magaciisa waan helay marka waxa noo cadaatay dadkaasi waxay hayeen taas waa guul ay ciidanka dambe baaristu ay gaareen markii dambena waxaan galnay dadkaasi dadkii caawiyay gargaarayay dambigaasi muu dhaceen hadii aan la soo gargaarin dadkaasi waxa la garab joogsano dad kale aan kula jirin tusaalahan ninka booliiska la sheegay ka soo kaxeeyay loo yaacdo iyo nin kale oo isagana la socday labada nin ee soo galisay dambi aad u weyn bilayeen iyagaaba wadanka u fudeeyay in dadkaasi yimaadaan mar haddii yimaadeen qarxi waa ka dhacay imga baaritaankii ugu horeeyay ee aan sameynay maanta ayaan soo gabagabeynay wax kasta wax xeer bay ku socdaan dadka la qabto xeer ayay xaq bay u leeyihiin muddo kooban baa lahayn karaa waqti doon lama hayn karo marka xeerka qaabto ee jamhuuriyadda Jabuuti wuxuu sheegayaa in dadka lahayn karo ugu badnaan 4 maalmood 4 maalmood markay dhamaatay waxaan maxkamadda saaka u gudbinay oo xeer ilaaliyaha horgeynay 7 qof sidoo kale mar TV-gan caalamiga Universal uu Korneylka weydiiyay maadaama qaraxaasi ay sheegteen kooxaha Al-Shabaab in sidii Kenya ay shacabka Soomaalida ay halkan ku dhaqan saameyn ku yeelan doonto yeen kale ayaa waxa uu Korneylku ku jawaabay waxaan cadeynayaa in dadka Soomaalida ee Jamhuuriyadda Jabuuti wadanka la degan wax saameyn gaar ah inaan ku yeelanin waxay quraato